loo sii xoojiyo oo loo sii ambaqaado halkii ay hore u joogeen wixii hore looga wada hadlo wixii cusub ee lagu soo kordhinayana laga wada hadlo haddii aan maanta idin dulmaro arrimaha ugu muhiimsan ee laga wada hadlay markii aan dalka tagnay waxa kamid ah oo aan ugu horeysiinayaa waxa aad looga wada hadlay iskaashi xagga nabadgelyada sida aad ogtihiin mandaqada waxa aad ugu soo xoogeysanaya nimankan la yaa argagixisada oo meelo badan ku sugan si arintaas looga hortago oo la iskaga kaashado ayaa ahaa qodobada kamid ahaa qodobada ugu waaweyn ee uu wada hadalkaas ku saabsanaa waxay argagixisadu meelo badan bay ku eg tahay oo mandaqada kamid ah mandaqadu waa isku deegaan isku wada xidhan oo meel walba la iska soo gaari karo badiisa barigiisa xuduudihiisa meel walba Somaliland markaa ku talagal bay sameynaysaa ay doonayso inay arintaa ku ilaaliso maxay to dalka imaaraadkana ay la kaashanayso iyo dalalka kale ay saaxiibka yihiin sidaa darteed maadaama ay argagixisadu soo xoogsanayso oo aad mooddo inay ku soo xoogayso mataqaana xoog soo yeelanaysa maxay to mandaqada Somaliland ku talagal bay ku sameysay ay arintaa doonaysa inay wax kaga qabato wafdiga halkaa tegey waxaa garab socday oo la shaqaynayay dhammaan madaxda ciidamada jamhuuriyadda Somaliland qaybaheeda kala duwan hadday tahay militariga hadday tahay booliiska hadday tahay ciidanka badda hadday tahay surdoonka dhammaantood qayb bay ka ahaayeen oo way barbar socdeen oo wada hadalkaas bay ka mid ahaayeen wafdigaasu si ciidanku ay wixii iskaashi iyo tababaro iyo maxay to heshiisyo kale ay soo gelayaan ay u soo galaan wixii baahidoodu tahayna ay u dhiibtaan qayb bayna ka ahaadeen waana ka soo qayb qaateen intaa waxaan ku darayaa oo wehelisay arrinta nabadgelyada arrimo ku saabsan muhiim oo ku saabsan xagga dhaqaalaha waxaan idinka sheegi karaa kuwa ugu muhiimsan waxaa ka mid ahaa in jamhuuriyadda Somaliland iyo dalka imaaraadka carabtu ay si wada jir ah u sameeyaan hay'ad dhoofisa xoolaha reer Somaliland oo iyadu markaa qaada oo markaa u sii gudbisa caalamka intiisa kale ama dalalka carabta ha noqoto ama dalal kale oo ka sii fogba ha noqotee hay'adaas inay xoolihii furto oo qaado oo geyso dalalka kale caalamka u baahan awal caqabadadku ay hortaagnayaan xoolaheena si ay looga gudbo arintaasuna waa arin weyn oo la soo galay oo iyadana la filayo inay wax weyn dhaqaalaha dalkan ay wax ka qaban doonto qodobada kale aad looga wada hadlay muhiimka ahaa waxaa ka mid ah sidii Somaliland bankeeda dhexe ama central bank waxa la yiraahdo loo xoojin lahaa dal kasta dhaqaalihiisa qayb weyn buu ka yahay banka ayaa dalka haya maxay to maaliyadiisa isaga xukumo oo qorsheeya wax badan buu ka tagi karaa central bank haddii uu dhaqaale haysto ganacsatada yaryar iyo ganacsatada waaweyn iyo hawlaha kale faraha badan ee horumarka ayuu maalgeliyaa wax amaahiyaa siiyaa soo dejiyaa lacagta wuxuu ilaaliyaa maxay to qiimaheeda ayuu ilaaliyaa arinta bankeenu sidii awoodii loo siin lahaa iyo kartidii oo hawlaha ku gudan lahaana waa arrimaha laga soo wada hadlay oo la isla soo afkartay oo laga shaqeynayo arrimaha kale muhiimka ah ee arinta dhaqaalaha la xidhiidha ee laga wada hadlay waxa kamid ah airportkii berbera ee aad maqlayseen inuu markii hore ka mid ahaa qayb ka mid ah maxay to saldhigga ama halka imaaraadka carabtu ay ka samaysanayaan waxa la isla gartay in airportkaas uu noqdo mid diyaaradaha rayidka iyo kuwa ganacsiguba ay ku degi karaan oo ka shaqaysan karaan oo ku degi karaan ee aan ku koobnaan doonin ama intiisa badan looba isticmaali doonin saldhig military oo mataqaana airport military taasuna qodobada ugu waaweyn ee la soo afkartay ayay ka mid tahay
waxa ku jira qodobo badan oo kale oo waxtar ah oo ay ka mid yihiin maxay tahay imaaraadka carabtu inay Somaliland aad uga caawiyaan xagga beeraha horumarinta beeraha oo ay maalgelin badan ku sameeyaan daraasadoodii la sameeyo dabadeedna ay sidii ay wax uga qaban lahaayeen laga wada hadlo oo ay baqaadaan xaalad badan oo kale laga wada hadlay baa jira oo iska yar yar waxa ka mid ah isbitaalka Hargeysa imaaraadka carabtu waxay ballan qaadeen inay ka sameeyaan qayb weyn oo ku saabsan daweynta iyo wax ka qabashada kaliyaha cudurrada kaliyaha kidney dialysis waxa la yiraahdo iyo sida kale ba kaliyaha qayb weyn ay ku kordhiyaan arrimahaas ugu muhiimsanaa arrimihii laga wada hadlay intaas aanu kaga baxay